وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسيغني wuxuu ku saabsiisay mowduucan hore ugaga hadalay meelaha kan oo isagoo intan ka balbalaaran oo 3 muxaadara u yaalo, laakiin maadaama aanu arko weli baahida Soomaaliyu qabtaa inuu badan yahay xalkii la rabay inaan laga gaadhin, waxay ugu muuqatay inaan mar kale ku celiyo. wuxuu ku saabsiisan yahay subulu inhaa'i alkhilaaf. إن شاء الله تعالى isagoo kooban baan soo bandhigi doonaa, ciddii rabta isagoo faahfaahsanna ashradada agtiina taallay ku noqon doontaa. ummadda Soomaaliyeed waxaynu ognahay in burbur weyni soo gaadhay. ka dowlad ahaan waa burburtay, ummad ahaanna waa burburtay, dhaqan iyo diin ahaanna waa burburtay. qof Soomaaliya haddii lala hadlayana uma baahna in looga warramo burburkoodu xadku gaadhay, bale waxaynu odhan karnaa luqaadka caalamiga ee maanta jira ayaynu erayo cusub ku soo kordhinay oo loo adeegsado khilaafka ummadaha ka dhex dhaca. walidaalika baa luqa alcarabiya sawmalat alqadiya haddii imka la yidhaahdo waa mafhuum cusub oo dadku ay fahmi karaan, ummad dhan oo isa sudan. مشكلة حاجة ينجح هيساتها والاسكود ديين لحلله سيدا ضد بدني تجابيين أو يتبين دولة دودي وحكا بدن بالله دسي وحبا ما دسمان. وبربر فئات كمجتمع عردن ساميي، هدوية سياسيين، هدوية سلاطين عقال، هدوية إيفان علماء، هدوية هي قبائل وبلشد عردن بربر ساميي. waxay isweydiinta la runtii waxay tahay ma dadkaynu ka muran badan oo ka dhib badannay, ma nooc gaara baynu nahay ka Soomaali? jawaabtu waa maya, ma nihin. bale marka la daraaseeyo cunsurka Soomaaliga wuxuu ka mid yahay baynu odhan karnaa dadka mashaakilka bini aadamka kala kaxeeya ay ugu yar yihiin, ama dad la odhan karo waa homogeneous group. waa dad diin wadaaga, dhaqan wadaaga, af wadaaga, dhul wadaaga, midab iyo muuqaal wadaaga, wax lagu kala sooco oo badani aanu oolin. marka loo eego dunida dhisan, iyada ka diversity badan, iyada ka tanawuc badan, iyada ka kala gedisnaan badan, haddana maxay u anfici weyday waxaasoo dhammiba isweydiinta leh. haddii aynu leenahay luqo iyo diin iyo af iyo dhaqan iyo dadnimo iyo hidde iyo wax walbaynu wadaagnaa, waayo haddana aynu kuwaan wax walba wadaagin uga qaybsan badnaanayn. aragtidayda waxaan odhan karaa waxa weeyaan qaabka qadaayaadka loo xallilo ayaa inaga maqan. si kale markaan u tilmaamo, إنسان بينوني إنسان كان لابد من أخطاء ودعاء. dadka wax isku darsada Ilaahay Quraanka wuxuu ku tilmaamay wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina aamanu. dadka wax isku darsada baa la yidhi ka soo bilow halka ugu hooseysa wax la iskaga darsado, nin iyo gabadh isku darsada inay reer noqdaan, ilaa iyo meelaha ugu sarreysay bulsho wax iskaga darsay dowladnimo leh iyo inta ka dhaxaysa. bini aadamku hadduu wax isku darsada baa la yidhi waa isku xadgudbaa, taasi waa min طبع الإنسان إلا الذين آمنوا baa la yidhi, kuwa yar ee iimaanka laga helay mooyaane, وقليل ما هم. haddaynu taa dadka la wadaagno way macquul tahay
bulshadii wax isku darsatay ee wax wada lahayd ama dowladnimo wada lahayd ama dhul wada lahayd ama dhaqan iyo hiddo wada lahayd ama wax ka hooseeya lahayd shirkad lacageed wada lahayd masaajid wada lahayd jaaliyad yar wada lahayd ka sii hooseysa guri wada lahaa intii ugu badan ee Soomaaliya lahayd waxaan odhan karnaa wax badan oo ka mid ah wuu burburay guryaha burburay siiba marka dabadaha u soo baxdo wax badan oo Soomaaliya lahayd baa burburay ma jirtaa tallaabo haddaynu qaadno waxa kan la solve garayn karo xal loo heli karo waxaan leenahay haa shareecada islaamiga waxayna bartay saddex step haddii la qaado in mashkilo kastoo dunida taalla la xallili karo bini aadamkuna can ariiqi tajriba buu ku ogaaday inay saddexdan shayiin waxa lagu xallilo dadku markuu isqabto ee murme ee wax kala dhex galaan wuxuu intuu doono ha leekaado dil ha noqdo wax ka hooseeya ha noqdo saddex ariiqo mid unbuu bini aadamku u kala baxaa in ay cidi wax cafido oo dulqaadka cidi leeday lagu wada noolaado in compromise la sameeyo la isu tanaasulo oo win-win situation la tago kana wax ka daadago kana wax ka daadago xuquuqdiisii si islaax loo raadiyo meel dhex la isugu yimaado iyo in la garamo oo waxa lagu garamo marka gartu go'do la qaato saddexdaa ariiq mid unbaa bini aadamku u kala baxaa laakiin haddaad saddexdaba dhinac marto weligaa waa isa sudhnaanaysaan kala bixi maysaan saddexdan ariiq aynu sheegayna maxay shareecadu ka tilmaamaysaa kow in la iscafiyo waxaa la yidhahdaa aktar min 40 aaya fi lqur'aan baa ku soo arooray hal aayadii way nagu fillayd oo rabbi ka timi oo ilaahay ku hadlayo inuu yidhaahdo iscafiya laakiin aktar min 40 aaya qiyaas 40 aayadood in ka badan oo baabkaa ka warramaya axaadiista nebigaa la mid ah iyo dhaqankii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyaga oo qurayshi dishay oo ka saartay waddankiisii maka uu ka baxay oo daa'if laga soo celiyey oo ilaahay u oggolaaday malagul jibaal inuu laba buurood intuu qaado reer maka saaro la yidhi ma rabtaa in la saaro ayuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iska cafiyey bale xadiidka bukhaari warinaya waa ka tilmaamaya ibnu mascuud baa wuxuu leeyay waxaad mooddaa inaan arkaya nebigii oo ka warramaya nebiyan shuraaxda qaar baa le isla isagu ahaa cidda laga warramayey nebiyan min alambiyaa aadaahu qowmu nebi nebiyada ka midoo tolkii intay dhibeen wejigiisa ay dhiig ka keeneen oo intuu dhiiggaas ka masaxo haddana ducaynayo leh allaahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun ilaahu tolkay dembigooda dhaaf waxba garan maayaane waa nebi khayr buu wadaa wanaag buu sheegayaa abaalmarkiisa waxaa laga dhigay maxay in wejigiisa dhiig laga keeno haddana wuxuu leeyahay ilaahu tolkay dembigooda dhaaf waxba garan maayaane ayuha alikhwa cafwiga qur-aanku fii suurati shura marka laga warramayo sifaadka dadka mu'miniinta ah ilaahay intuu soo wadayba waxaa lagu tilmaamay waidaa maa qadibuu hum yakfiruun waa sifa min sifaati almu'miniina alasliya waa duul haddii ay cadhoodaan cafiye baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya muttaqiinta jannada gelaysa min sifaati almuttaqiin inay ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maxalu shaahidkuman aayaadka idin tilmaamaya waalcaafiina can innaas waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwa cadhadooda qarsada ee dadka iska cafiya waa uciddat lilmuttaqiinti bay kusii xidhantay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamaya inay sifaadka dadka mu'miniinta ee dhabka atay laakiin markaan hoos u dhaadhaco dadku amhiladay wax ku fahmaan tusaaluhu
waa shay qof maan gaaban iyo qof maan dheerba si fudud ay wax ugu wada gartaan aan tusaalayaal bixiyo anoo ka tallaabsanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam qadaaya siyaasa buu cafwi ku isticmaalay ha noqoto siyaasa daakhiliya maalan ghaswat uxud buu galay ghaswat uxud markii lagu sii socday nin munaafiqiinta ka mid ah baa bulshadii hadlay wuxuu u arkay nebi maxamed inuu ra'yigiisii khilaafay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay ciidankii uu nebigu watay buu 3 dalooloo dalool jabsaday kun nin bay ahaayeenoo almost 300 oo nin wax ku dhadhow ayuu dib ula noqday waa nebi maxamed oo ciidan wato dagaal ku socdo oo ciidanka laga jabsado dagaalkii baa la galay saxaabu meel faray inay ilaaliyaan waxay sidaahdeen waa kaa gaaladii jabtay haniimada wax ka qaatay waa ka soo daadegeen munaafiqiin gaaladii way soo noqotay haddana muslimiintii baa dib loo jebiyey markii la jebiyeyna waxay gaadhay ragga badh orodkii ay carareen madiinay ku galeen waxay gaadhay mashkiladdu in markii dambe la yidhaha nebi maxamed laftiisii baaba la dilay calayhi salaatu wasalaam waxaasoo burburiyo jab oo dhacay ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu dadka u maamulayo u wadayo qof kasta oo maamul haya waxaan leeyahay war bal aayaddan u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay naxariis xaggiisa ka timi ayaad ugu naxariisatay baa ilaahay leeyahy haddaad mid qalbi engegan ahaan lahayd dadku wuu kaa yaaci lahaa haddana ilaahay kuwaasu wuxuu leeyay la tasho oo cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydii washaawirhum fi lamri baa la leeyahy raggaa jabay ee dhibtu qabsatay ee caynkaasaa la leeyahy weliba talada wax ka sii waa nimankii maalintii yaacaadtiina ay dhaafa muu odhanin kuwii ciidanka dib ula jabay baatiin waayo ummad marka laga fikirayo way ka gedisan tahay akhtaada ay koox ka midi samayso walidaalik baa ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala inuu cafiyo waa bulshaduu maamulaya siduu ula dhaqmay bulshadii dabadda ka joogtay siduu ula dhaqmay ee gaalada ahayd markii la yidhi buuraha lagu dumiyo wuxuu yidhi dhabarkoodaan ka rajaynaya qaar ilaahay caabuda inay ka soo baxaan amase maka markuu furtay reer maki wax ku dhodhow 21 sano 2 sano haddii laga jaro oo heshiis lagu wada jiray 19 sannadood bay nebi maxamed dagaal kula jireen 19 sano kadib sanadkii 21aad oo ay ballankii ay la galeenna ay jabiyeen buu duulimaad ku soo qaaday wuu ka xoog badiyo wuu qabsaday waana gaalo maxaad yeeli lahayd gaalo inta isdisheen 21 sannadood colaadi dhexdiinna taallay oo aad ka xoog badisay oo markii horena aan teello kuu dhiganay xataa isku kaa dayay inay ku dilaan oo nebi maxamed wuxuu makaba uga baxay waxay ahayd markii la yidhi madaxa laga gooyo markuu qabtay buu yidhi maxaa u malaynaysaan maanta inaan yeelayo waxay idhahdeen akhun kariim wabnu akhun kariim walaal fiican oo nin fiican oo in adeerka iyagii dhalay wuxuu yidhi iska taga idhabuu faantum utulaqaa waxa cafiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kastoo sanad ahaan daciif uu qowlku yahay idhabuu faantum utulaqaa culamaa alxadiid tilmaamaan rawaayadda kale xasan ku sheegaan markay ururiyaane ah laa tathriiba calaykum alyowm عموما waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii gaar ahaan isaga loo yeelay intaasoo goor bay isku dayeen inay dilaan waxaa la isku dayay in lagu dilo gaadmo waxaa la isku dayay in lagu dilo sun waxaa la isku dayay in lagu dilo sixir waxoo dhan way iska cafiyeen midna ma qabsanin isagoo ciidankiisii la soo noqdo meel hadhsanaya oo ay seexdeen baa nin gaaleed soo dhex marayo nebiga seeftiisii buu ka dulqaatay oo laanu suran dabeetana wuxuu ku yidhi man yamnacni minka iyaga kaa celinaya iyaga kaa dhicin allah buu yidhi ilaahay baa ka dhiciyey seeftii buu nebigu qaatay isna iyaga kaa dhicin buu yidhi ku seef qaata kii u khayr badan noqo buu iska yidhi ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam iska sii daayay yuhuud khaybar buu qabsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam intay isdileen
khaybar markii uu ka xoog roonaaday qabsaday ayay yidhahdeen waa ku casuuno raashin bay u keeneen neef ay soo sumeeyeen baa loo keenay neefkii markuu isidhi dhadhami baa loo warramay inuu sumaysan yahay war yuhuud wixii meeshan jooga isugu yeedha buu yidhi waa la isugu yeedha yuhuud ay run ma ii sheegaysaan buu ku yidhi xadiidkii bukhaariha haddaan wax idin weydiiyo haa baa la yidhi su-aal horuu weydiiyo wuxuu yidhi man abuukum yaa aabbihiina reer maa tihin waxay dhahdeen reer hebel baanu nahay ma tihidin waa beentii iyo reer hebel baa tihin buu yidhi waa runtaa bay idhahdeen aan wax idin weydiiyey run ma sheegaysaan haa baa la yidhi naarta yaa gelaya buu weydiiyey waxay idhahdeen annaga 40 casho in yar baanu gelaynaa kadibna waanu ka baxaynaayo idinkaa nooga dambaynaya wallaahi waa beentiin buu yidhi idinka ikhsa'u fiiha ku waara idinkaa ku jiraya idinka dambayn mayno war neefkan ma soo sumayseen buu yidhi markii dambe yuhuudi waa niman intelligent meel ay ka dusaan bay samaysteen waxay idhahdeen haa oo maxaa u soo sumayseen waxay dhahan waxaanu isnidhi hadduu beenaalayana dee ha dhinto ha idin dhaafo hadduu nebiyeyna waa loo sheegi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska sii daayey waa kuma madaxweynaha maanta dunida jooga inta la sumeeyo odhanaya war iska tago orodoo kii sugeeyey mise waa khiyaana alcudmaa baa lagu qaadaya nebigu uu iska sii daayey calayhi salaatu wasalaam waa la sixray ilaahay baa sixirkii ka furfuray oo qur-aan u soo dejiyey uu ku caafimaaday oo loo tilmaamay meeshuu ku jiro sixirku oo ka soo saaray labid ibn lacsam nin la yidhaahdo waxba lama odhan iska sii daayey waxba looma geysanin yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacidadiisaaba waxay ahayd xadiidkii bukhaari aan isu warinayo man taqama linafsihi qad weligii ma aargoosanin waxa ugu weyne bini aadam dhex mara waa maxay waa dil soo maaha ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan iyadoo dilka ilaahay ka warramayaba wuxuu leeyahy ninka walaalkii dhiiggiisa wax ka mida laga cafiyo kii wax dilay iyo kii la dilay baa weli qur-aanku walaalo ka dhigaya dabeetana qaatilka haddii dhiiggii walaalkii wax ka mida laga cafiyo reerku baa la leeyahy marka ama ciddii weliyu damiga ahayd faatibaacun ha u raacdaan ninka kan bilmacruuf waadaa'un ilayhi biixsaan isagana haddii cid lagaa dilo saddex hal mid baad leeday inaad qisaas qaadatid oo aad tidhaahda ha loo dilo marka kiisku ku caddaado inaad mag qaadatid oo cafidid compensation inaad qaadatid ama maaha inaad iskaba sii daysid midna aanad qaadanin ayuha alaxiba وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولا مركي إلهي كور رمي وحي واجب كلا قدقي دل إياه قصاص بالله شاقي أي وحلدي فمن تصدق به فهو كفارة له إن تصدق هذا يسكر تعالى المام سوهاش كواد مركا وحي تاي dadka in cidi tanaasusho la iscafiyo qur-aankuna in badan buu inooga warramayaa qisadii xaadiثat lifki baa qur-aanku ka warramaya iyo dhaartii uu dhaartay abi bakar inaanu mistax ibnu athaath wax siinin ee ilaahay qur-aanka soo dejiyey waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi yuusuf iyo walaaladii waxay ku sameeyeen oo inay god ku rideen oo uu xabsi galay oo uu dhib oo dhan soo maray oo ay u yimaadeen oo haddana dacaayadeen oo isagoo uu hortaagan yahay oo uu madax yahay ay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu hadduu waxaday kan yari ku ka horreeyo oo walaalahaayeen yuusuf bay leeyihin oo tuuga baa jiray waa beenay ka sheegayaan nimankii godka ku ridoo been ka sheegayo haddana yidhi laa tasriba calaykum alyowm waa iska cafiyey qur-aanku wuxuu ina barayaa qoysku reerku wuxuu ku dhaqmaynaytay yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu qur-aanku wuxuu ina barayaa reerku goormuu ugu dhib badan yihi ninka iyo gabadhu markay isfurayaan soo maaha marka la odhan karo kayskoodu waa ugu adag iyo waa kala durugsan yihiin labadii qof waa markay furis gaadho
ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay haddaa gabadh furtaan idinkoo aanu galmoonin se loo sheegay meherkeedii gabadhaasi xaq waxay u leedahay baa la yidhi meherka nuskii mar haddaanay ninkaba is arag laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax wa an tacfu aqrabu litaqwa inay dumarku iska cafiyaan oo yidhaahdaan war waxba ha badhabadhayna iska qaado ama ninku uu cafiyo oo yidhaahdo waxba ha badhabadhayna meherkoo dhan baan wada bixinaya wa an tacfu aqrabu litaqwa baa ilahay leeyahy ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nin iyo gabadh kala tegaya oo raabitadii u dhaxaysa ee go'day laakiin loo sheegaya inay iscafiyaan kaasi waa qadiyadda koowaad mashaakilka bini aadamka dhex mara waxaa lagu xallili karaa in la iscafiyo qadiyadda labaad waxa weeyaan in sulxi la galo sulxigu muslimku inuu weligiisa sudhnaado maaha acmaasheenna ilaahay baa loo bandhigaa isniin kasta iyo khamiis kasta dabeetana waxaa la yidhahdaa qof kastoo aan ilaahay u shiriik yeelaynin oo ilaahay keligii caabudayay ayuu ilaahay yidhaahdaa dembigiisa waan dhaafay laba see is haysta baa la yidhahdaa labadaa iyaga warkooda dib u dhiga oo ilaa goorma xataa yastalixa baa ilaahay leeyahy xadiiska saxiixa labadaa arrinkooda dib iga dhiga idan haddaynu isa sudhnaanno xataa xagga rabbi dembigeenna la cafin maayo acmaasheenna dib baa loo soo celinayaa intay isa sudhnaanteenu kala baxayso maxaa xal ah bini aadamku reconciliationkan gaaladu waa kuwa yidhaahdaa zero sum game iyo win-win situation bay sheegaan inaad tidhaahdo calaya wa calay qisadii ay sheegi jireen qisatu shamshuum shamshuumku waa qisa khuraafiya qisaska banu israa'iil ka tirsan si kale haddaynu u tilmaamno waa mahmaahdii soomaaliyeed ee odhanaysay maxay cad yahow ama ku cunay ama ku ciideeyey bay soomaalidu tidhaahdaa yacni qofka kale waxba uma ogola ama anuu isoo raacaya ama labadayduba weynaanu weynaa laakiin gaalada waxay yidhahdaan win-win situationka ka fiican adna inaad guulaysato ka kalena guulaysto labadiinaba idinkoo guul wata inaad ka baxdaan say u dhacdaa waa inaad sulxi gashaan heshiis compromise waa inaad wax ka tanaasushaa isna wax ka tanaasula ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahna wasulxu khayr wa uxdirat ilanfusu shux ninkiiyo gabadhii isqabtay waxaa la yidhi falaa junaha calayhima an yuslixa baynahuma wasulxu khayr inay dhexdooda sulxi aayaddaas kooban waxaa la yidhaha 3 jeer bay kelimatu sulxi ku soo noqoto ilaahay wuxuu leeyahy wasulxu khayr inay heshiisaan qaacida oo islaax ridaan ninkiiyo gabadha muransani oo qadiyadooda ay wanaag ku dhammaystaanba khayra baa ilaahay leeyahy markaasaa waxaa la raaciyey wa uxdirat ilanfusu shux naftana bakhaylnimo iyo dhabcaalnimaa lagu xaadiriyey bakhaylku bini aadamku lacagta qura kuma aha maca xuquuqdaada ninkii gabadhu markay iskalaan waa xaqaygii hadduu mid waliba ku dhego waa dhib badantay lama kala furfuri karayo laakiin haddii midba wax ka tanaasulo meel dhex waa la isugu iman karaya ay mushkilad kastoo reerka ka dhaxaysa haddii laysu tanaasulo waa la isu iman karaya ilaahay wuxuu ina leeyahy fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وار إلهي كعب صدى ودبت الدحدين نتالا هقاشية ورب الله سبحانه وتعالى قرآن كإلهي وحط المام يا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس شرركم خير بكم بشروا صدح شرور موياني شر صدقية وحلبها الله يسفريه ودتكو إنه وح صدقة يستل يسوق شيء أما سما الله يسكفريه ووناق يا خير لقط الشنيه أما عد له هشيسين يبو قرآن كتل المامية وحي انتهى كصهرة قيمة ماله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحين شيء وروح أخير بدن ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصوم
ما يدين شيئا وحكا فضل بدن درجة الصوم كي صلاة إيو عبادات كينو نغاني شراح الحديث وحيد هذا ما قوة السنة أما السنة هاتا ما متكلها هاتين waxaynu naqaanaa qofka muslimka aqligiisa waxa ku jira cibaadaadka ugu waaweyn ee Ilaahay loogu dhawaado waa maxay waxaynu ninka hebel waa salaad badan oo habeenkii taagan oo maalintii tukanayo shanta faralku wax dheeraad u sameeya sunana waa ku amaana waa cibaada ayaynu rumaysanay waxaynu ninka hebel ama waa boqol soon ama waa intan soon ama isniin buu soomaa khamiisuu soomaa ayaamul bayd buu soomaa kan buu soomaa ninka markaad aragtaba waa qof sooman waa ammaanaynu ku ammaanayno waxaynu ku ammaanaa gacan furaanta waxaynu dhahaa ninka agtiisa laguma qado khayr ba haddii la sheego sadaqada wuu bixinaya waa cibaadaat cinda almuslimiin caqligooda degay oo ay garanayaan cibaado alle loogu dhawaado inay tahay haddaba nebi maxamed wuxuu leeyahay taa aa barateen wax ka fadli badan ma sheegaa haaba yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nebigu wuxuu ku yidhi islaaxu daati ilbayn dadka dhibta dhexdooda oo la hagaajiyo macnaheedu waxa weeyaan inaad soon dheeraada soonto iyo salaado badan inaad tukato iyo sadaqo badan inaad sadaqaysato waxaa ka khayr badan walaalka inaad la heshiiso waayo haddii colaadu badato diinta xiiranta وحنتا بدنتا ودب يدل هي مشكلة دون ما كيمادا ولذلك أيها الإخوة وحنا إصلاح كان النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا السياسة بينقور وإصلاح ما نسقوا من بركة تاجم بينا يروا ووية ساقلي حسن ابن العلي وويل وين أنتي سودا شيء دبتنا ويل كي يرابو انتو صدر ويقو مرنا ضدك ويقا النبي عليه الصلاة والسلام مرنا إنا كان يروا ويبو يقا دبتنا وحو الصحابة دي كو يري حديثك الصحيحة إن ابني هذا سيد ويل كي أنا أركيسا سيد بويري ووايل وقورتي وسيد من سادات الناس دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام بمساد wuxuu sayidnimada ku helay maxay tahay suudadiisu xagay ka timi tiibu sharxay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri wala allah ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa la arkaa inuu ku islaaxiyo gacantiisa laba fi oo waaweyn oo muslimiin oo kalmadoodu mid oo ishayay in lagu islaaxiyo al-Hasan ibn al-Ali waxaynu naqaanaa Ali ibn Abi Talib iyo Muawiya dagaaladii iyo dhibtii ka dhexdhacday isagoo cali u arkayay marka koowaad dawladnimada islaamiga in la sugo markay dawladdu suganto kadib dadka wixii dhib geystay maxkamadda la taago halka qolada kalena cagsiga arkayso leeyihiin dhiigii imaamkii muslimiinta Uthman baa sii qoyan nimankii rabshada geystay hal laga takhaluso maxkamadda hal la saaro kadibna arrinka islaamiga ah la isugu yimaado waa laba ra'yi oo marka sidaa loo eego isku dhadhow laakiin waa laba ijtihaad oo kala durugsan markii wada hadal bilaabmana dadkii rabshada tan ku jiray baa isku dayay inaan wada hadalkan soconin dagaal bilaabmay 5 sanadood bay saxaabay istilaysay kadib ayaa niman xaramka ku tashadeen mala waaba madaxda muslimiinta waxaan dhiftu ku keenay aan layna nimanka iyaga ah go'aankii la qaatay fulintiisii علي baa la helay qoladii kale may dhicin cala ay dileen isagoo salaad subax ku soo socda ilaahay ugu dhawaadeen inay ka takhalusaan arrinkii markii uu dhacay xasan ibn al-Ali ayaa laga dhigay imaamul muslimiin ama khaliifadii muslimiinta xasan waxay yiraahdaan isagoo ciidan 100 kun oo ku dhadhow wata oo la oran karo isaga cid ka xoog badnayd oo meesha joogtay ma jirto ayuu wuxuu damcay si muslimku u heshiiyo inuu isagu kursigiisa siyaasiga ka daadago khaliifatul muslimiin isagoo ah inuu ka dhaadhaco si ay muslimiintu u heshiiso wuxuu aqbalay Muawiya in loogu daro madax noqdo iyadoo aan leenahay xasan baa ka xaq lahaa laakiin Muawiya la siiyay idan waxaan leenahay sulxigu kursiga madaxweynenimo iyo caasimad iyo waxa la sheegayo dhan wala siisan karaa wax weyn maaha
laakiin dadka muslimiinta ah in sulxi dhexdooda ka dhaco ayaa wax loo baahaya. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam heshiiska gaalu la heshiiyey, cid kala daaya, muslim dhexdii daaya. sulxu xudaybiya muxuu ku dhacay? gaalow nebigu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam 10 sannadood inay dagaalka iska daayaan. weliba bunuudda heshiiska ku qoraa bunuud adag baa ku jirtay oo ka mid ahaa maxay? ciddii muslimka ka timaadda inaan loo celinin, laakiin ciddii gaalada ka timaadee soo islaantay in lagu soo celiyo haddaanay fasaxaysanin. waanu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwii ka yimi. ayuha alaxiba, waxaan leenahay sharcigu wuxuu tilmaamayaa alsulxu jaa'isun bayna almuslimiina ila sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraama. nebigu wuxuu leeyahy heshiis oo dhammi wuxuu doonaba ha noqdee dadka muslimiinta ay ku heshiiyaan dhexdooda wuu bannaan yahay. wuxuunbaa reeban heshiiska xaaraan lagu xalaalimaynayo ama xalaal lagu xaaraantinimaynayo, kaas isagu ma bannaana. sharciga isbeddel kama dhici karo. xalaashii xaaraantu waa sideeda. amaa wixii ka soo hadha, nin iyo gabadh isqabaa wax kastoo ay ku heshiiyaan oo ka soo hadha masalada tani waa bannaantay. qadaaya siyaasa, qabaa'il, dowladnimo, wax kastoo lagu heshiiyo oo masaladan ka soo hadhaa waa bannaantay shareecada islaamiga. idan ayuha alikhwa, sulxiga macnihiisu waxa weeyaan in laysu tanaasulo, qofba wax ka tanaasulo, ka dhaadhaco, qofba wax ka tago xuquuqdiisii can ridaa wa tiibi qalbin uu kaga tago, meel dhexal la ysugu yimaado la ysku waafaqo. qodobka saddexaad ayaan ku gebagabaynaya waxa weeyaan, haddii labadaa hore la waayo, ilaahay wuxuu leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum, war ha isqabsanina oo ha murmina. haddii muranka iyo isqabsigu dhaco waa fashilaysaan. alfashlu fi luga iyo dacf, waa liidanaysaan. dowladnimadiinna iyo magiciinnuna waa tegaya. isagoo ilaahay saa inooga reebayba haddana wuxuu rabbiina yidhi fain tanaasactum fii shayin, marka hore waxaa la yidhaha atiicu allah wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum. ilaahay aqbala oo rasuulkiisa raaca oo madaxda ka dambeeya ateeca. ila nin haddaad tidhaahdo masaajidkaad madax ka tahay cidina ku dhegaysan mayso, dee madax maaha. dowladdaad madax ka taho cidina warkaaga qaadan mayso, madax maaha. laakiin haddiiba ay dhacdo in la murmo oo wax qaldamaan, see la yeelaya? ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shayin, haddaa wax uun isku qabataan, madax iyo mijaba, ilaahay iyo rasuulkiisa u celiyo ka xukum qaata. ima kitaab allahi subxaanaه wa tacaala ama sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. waayo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya kaana الnaasu ummata waaxida, dadku iyagoo mid qura ah inay iskhilaafeen oo diin la-aan iyo wax timid oo shirki lagu dhacay. ilaahay dabeetana uu rasuul soo diray, kutubna uu soo dhiibay. maxaa rususha loo soo diray? waanzala macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaas baa ilaah yidhi. rususha kutub baa loo soo dhiibay. maxaa loogu soo dhiibay kitaabkan? liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiihi baa ilaah yidhi. in dadka lagu kala xukumo waxay isku khilaafeen ay ku kala tegan yihiin. in la xukuntamaa 3 shay oo quray u baahantay. shayga koowaad, dadku markuu murmo waa inuu marjaca isku waafaqsan yihiin. maxaynu u gardhiganaa, maxaynu ku kala baxnaa? ilaahay qur-aan iyo waxyigaan idiin soo dejiye ku kala baxa buu ina leeyahy. bini aadamka caadigii xataa wuxuu gartay haddii la ysqabto wax lagu kala baxa inay jirto. saa daraaddeed bay umamkan duwalka dhistaa. maxaa loo dowladdu waa dad kala wada interesa, kala axzaaba, kala aragtiya, kala afkaara, haddana inay wax wada yeeshaan bay damceen, waana murmayaan. maxaa lagu kala baxayaa? waxay idhahdeen distoor iyo qaanuun iyo waxbaa la dhigtay. waxaa loo dhigtay in marka muranku yimaado gartu ku go'do lagu kala baxo. bini aadamku markuu isqabto waa inuu marjac yeeshaa.
وتجاربتي ببني آدم كبرتي دستور كان لقرا وحكى لقرا إذا مرجع لبو وقيب سما بين علماء إلى هذا مد أصله وأن اسبدلين وقرآن يحدث كي حق ربك يمية يبا إلى هذا مد فرعية واسبدل كسر تقليي واحد بني آدم كوكو شيء يقرطه واحد بني آدم كوكو شيء يقرطه وامحي أما الدستور كشيء أما قانون كشيء أما هشيس كشيء أما اللائحة كشيء أما حالي هذا مقعد ضمطادو كشيء قرال كستو بني آدم كوكو شيء وحن با شرطية ككسر رأي إنه خلاف سنين مثلا قوانين تودنات الدكتور محا شرطية إنه دستور كخلاف سنين قانون قدو دستور كخلافة يساقا باطلة فكذلك wax kasta oo bini aadamku dhigto muslimiinta waxa ugu sarreysa maxay marjiciyadu waa kitaabka iyo sunnah hadduu labadan khilaafsay isaga baatila ama haddaanu khilaafsanayn wixii maskuutu canhuga ahaaya macnaheedu waxa weeyaan waa lagu dhaqmaya ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud waa dadka iimaanka laga helayo caqdiga heshiiskiina oofiya baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala aan mid caawa idiin sheego masaajidda soomaalida rag waraaq yar oo qoran oo dastuur yar iyo lawaaxiyo waxaa la yidhaahdaa mulzam baad ku tahay inaad raacdo haddii aad ka mid tahay membarka waxa kan la dejistay dadku waxay u haystaan inaanay diin ahayn war waa diin shirkad baad qof wada gasheen oo heshiis baa qorateen inaad shirkadda ku dhaqo mulzam baad ku tahay diin weeyaan inaad raacdo waxa kale waxbaa lagu heshiiyey wuxuu doona ha noqdo mar haddaanu quraan iyo sunno khilaafsanayn basharku waxyaaba uu ku heshiiye uu qorto ilaahay wuxuu ina faray wardeyn haddaa kala qaadataan faktubuhu baa la yidhi qora dayn xogaa yaroo lacaga ummadii hadday wax isku darsato ka warran wax written form oo maalintaas maanta waynu isku wada faraxsannay waa heshiis baynu nahay wax kasta laakiin berrita waynu murmi karnaa kala ra'yaynu noqon karnaa waa kala durki karnaa waynu jiraa waxaynu isula noqonno laynoogu garnoqo oo marka laynoo garnaqayo la yidhaahdo kanbaa ra'yigiisu iyo aragtidiisu waafaqsan tahay wixii qoraa kanna wixiisu waa baatil markaasay noqonayaan idan haddaynu rabno inaynu xukuntanno shayga koowaad aynu u baahanay waa maxay waa inay marjiciya jirtaa meelaynu u noqonno meeshaynu u noqonaynaa waa maxay imaa inay kitaab iyo sunno tahay ama inay tahay furuucda kan dhambashay ilaahay ogoliyay oo ah cuquudda heshiisyada bini aadamku uu galo u fiirso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam heshiisku gaalo la galay siduu u qadariyey sulxu xudaybiya waa la heshiiyey isaga iyo gaaladii u diiday inuu maka galaa wax ku heshiiyey waxay ku heshiiyeen sanadkan inuu noqdo oo aanu cimraysanin waxay ku heshiiyeen sanadka dambe inuu soo noqdaan oo cimraystaan hub yaroo fudud ay soo qaataan waxay ku heshiiyeen 3 cisho qura inay maka joogaan hadhow ka baxaan waxay ku heshiiyeen ninka gaalada ka yimaadee muslimka ee muslimiinta u soo cararay in loo soo celiyo ninkase muslimiinta ka soo cararay dib u rudoobay gaalada u yimaada inaan la soo celin heshiisyaday ka mid ahay waxaa dhacday muslimiin inay soo baxsatay oo nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam heshiiskiiba iyadoo la rabo in la qoraa baa jandal yimi ninkii heshiiska gelayay inaanu dhalay dabeetana ninkii wuxuu yidhi kanbaa ugu horreeya waxaan heshiiska kugula galay kan celi nebigu wuxuu yidhi war kan ii sii dah weli wax maynan qorine ma jirta buu yidhi heshiisba kula geli maya haddaanad kan celin anjisli buu ku celceliyey nebigu kan ii dhaaf ii sii dah waa diiday nebigu saxaabiga wuxuu ku yidhi iska noqo saxaabigu wuu qaylinaya wuxuu leeyahy ma waxaad rabtaan in diintayda layga fidneeyo waa nin toorjar ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yihiin oo isla maanta muslimku ugu dhow yahay oo maka ka soo cararay oo xudaybiye soo gaadho oo isla ciidanka muslimiinta maanta ayaad geli kartaa ayaad raacdi waxaa la leeyahay heshiis baanu gallees ka noqo isbir waxtasib buu nebigu yidhi abu basiir nin la yidhaahda soo baxsadoo madiine yimi dabeetana gaaladu 2 nin bay ka soo daba direen oo nebiga u yimi waxay yidhaaheen heshiiskeennu wuxuu ahaa ninkii muslime naga soo baxsaday inaad nagu soo celiso haye maxaa la samaynayaa markaa kan baa soo baxsaday bay yidhahdeen soo celi nebigu abu basiir buu yidhi wuxuu yidhi orad raac
أبو بصير محو كلا سمين كرا وحوسه بحسن يسماه النبي محمد أتراعد نبي محمد أمر وحو كسير وقال هذا دي بالراعه قال هذا هشيس بان الله قالوا هشيس كما بريه والنبي وليه الراع أبو بصير وسك صار راعي لحد مركو مريم بان ما كلا وضع هذا دلون الله سكشة كيستوى كرام مدن بايري سيفتا يدوا في عنته بل هي سيفتا دم في عنه وكقاضي سقوا ده هشيس نكو مشري الله ودي مد بمضحك كشرة كي كلنا وعرره وسائري مدينة وحصاق قال إن أرديون أحسن مركزوا النبي يقول كاني مشكلة بلاي وصارك أبو بصير أرديا كصوت ما قالوا بهشيسين ستة سافتي نكي بقى ورموا وحول الله وضع يدين إن نودي ده أنا درقم كصابح صدق نبي أبو بصير كي وحقت المامين ومصعر حربي يعني وقت دقالوجي هدول الله عادي يعني تاجر توكل معناه أبو بصير وحو فهمي مر لبعض هذا قال ضي تمادين هدنا اللي علين دونه دبعتنا مدينة بوسكا بحر ما الآن ترتري النبي محمد ما ملاهم بتجي عليه الصلاة والسلام وأوضضي قريش الشام أي أمرته هل كاسو كتشف هديست يسوق مركا حيركم مدينة حكومية دولة دمكم تشيلوه علوه بحر قريش سفردة دي بنفط يسوق كار مسلمين تي مكانه وحي بحسنا يا مركا النبي قوما بحسنا يا ساق كبيرة جبهات عصبة كفران طين ما كقريشات جبهات النبي مسؤول كماها هديل الله يا هدي وحدي لا أنتونا ساق كم ترسلية دولة ديس حاجة سيشوا كار أخيرا يا قريش صاعد صدويري نمان كاس بندقة قضب كاه لقى سعر هشيس كيو وحين نجي ما دوح بها سؤالين كل شوقان أبو بصير وصدح بقولوا عيدنا هيستا ورقنا بوصادرين وصاح حراضه يسقوا حرو صديبه وجريو ده مدينة مسوقان الرجال أنتي كانوا بساقش محن وجه هذا نبي محمد هشيس أبو قلي هشيس كهذا إيج وانين مسلم أو قالك الصاع عرين لجوء علياه ققرة ده بتنوفلي dadku maanta ballamada iyo heshiisyada iyo qoraalada iyo wax ray saxeexayaan waxay u haystaan iska formality ma huwa diin ama saxeexin oo hagelin ama fuli islaamnimadu waa taa laba saxaabi oo soo hijrooday dagaalkii badar xudayfa ibn al-yaman iyo abihi ayaa la qabtay gaalada qabatay waxay yiraahdeen ciidanka nabi maxamed ba ku socotaan waxay yiraahdeen ma madiinana noo ku socon لما الله قرنا يما هو يمني مدينة نسكت صعنا بعيد هذا وحليل ماها ويدين سيد ديري نبي قوة قالة تري مركها بشرط إن إذا النبي محمد يعيد كيس وتجين إن مقالة ده شيء سنة قبل إنسان وهي بعيد هذا النبي محمد ما أنت تن عليه الصلاة والسلام وما أنت عيدا وقتش على وهي سواء دجال كنت لقلي بعد دجال قبصدي إلهي وما أنت بري لها إله وكوح ضاير هداد هلاكته دريد الدبل وعابد ماي تعادي النبي محمد ما أنت بدربك ترسله وحوي من حذيفة يا به وأنا إلهي رسولك سيونا مكي قالت وين نقبتين هشيس بانون الله قال لي إن أنا نكوهي لين إن نقبرناه مقالة مدينة تهدنا وكانوا دجال بدقلي سادنا نكوسه هجروني أم حي كلات نبغوا حقول نفي لهم عهدهم حديث صحيح مسلم هو يالا نفي لهم عهدهم ونستعين بال كونا بلن كودي بانو فينينا قال لنا إلهي بانو وقال ما يسالنا اسكتك ابو نبي قولي وفرس محله فينيا بلن هنا عيدا كنبي محمد قالين اي نبي محمد لا يوانو فينيا waxaan uga jeedaa qadiyada tan oo adkeynaya waxaan u adkeynaya waxa weeyaan inaynu garanno marjica dadku hadday isqabtaan meel ay ku kala garbaxaan waynu jiraa waxa lagu kala garbaxayaa kow waa quraanka iyo sunnada wixii ku soo degay laba waa wixii heshiis la galay ee dadkaasi ay ku heshiiyeen ee aan sharciga ilaahay khilaafsanayn وهو حلو خلق بحيو كمدي نبي حلي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم مسلمين وهو حي شرط كردكته وحي إنه ولا بو شرط كردكته شيء لقوا قلي وقص بين الراعه إذن أيها الإخوة قضب كالصدح هذا نوبة هني وحويان
ثقة من الناس إنه قرته وديبنه إما إنه حاكم يقاضي مسلم ودي لو تغير لو كلا قرب حيي هدان دولة قاضية حاكمتون جيرين محل سمينية شرعت وحين ربنا الناس يحكم وحلا يدهدين لسمية dadku cid ay ku kalsooyin aw hebel iyo sheekh hebel iyo kaas bay roo garnaqaya haday labada taraf ku heshiiyaan way garnaqi karaan labada taraf haday ku heshiiyaan إلهي وحلي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم مسألة هذا حكمكم هل الحكم من باب الولاية أم من باب الوكالة مسألة فقهية لكن وحين لأن هذه قرط الله قالوا أقبلان وأنك إن لفليوية إن عد قر لو ديبته دي النبي محمد بأو ديبته عليه الصلاة والسلام سقي يهود مركي ويرري بنو قريظة أخيرا وحي أقبلين إنه كلا حكومة سعد بن معاذ بأنه أقل يبين هذا إنه كلا حكومة النبي قال وحيد أنا وأقله سعد بن معاذ بوحل يدي واحد كلا حكومة مسلم يهود تبعت أنا هو حكومة حكم كي وحكمان الفلية غزوة بني قريظة dadku xakam way samaysan karaan markaa xakamku wixii uu go'aanka gaadho markaa ilaahay wuxuu leeyahay wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq allahu baynahuma ina allaha kaana caliiman khabiira ayuha alaxiba waxaan rabaa warkan inaan soo koobo ninkii faahfaahin rabaa durusta kale ha u noqdo warkani wuxuu yahay war dadka kama dhib badnin kamana gadisnin koox yar baynu nahay oo bini aadam aada u tiro yara marka basharka dunida ku nool loo eego soomaali waa dad tiro yar waa dad diin iyo dhaqan iyo af iyo wax walba wadaaga dhul iyo meel walba laakiin waa dad garan waayey dhibtooda siday u xallilaan waxaa laga yaabaa idinku dadka markaan inta badan la hadlo dabadaa jooga waxaa caqligoodu ku baxaa waxaa ka jira waddankii iyo saa dowlad loo dhisan kari waa saa dhibi uga jirta iyo waddankii waxaa ka jira waxaan idin leeyahay kaba sokeeyaan kuwa dabadda joogaana idinkoo haysta waxaa cuntaan iyo waxaa cabtaan iyo shaqooyin iyo kan iyo murankiina wuxuu taagan yahay jaaliyado yaryar iyo masaajida iyo organisationno yaryar wax yaroo lahaydeen dhammaantood waa filiqtan iyo qabsi iyo ishaysi inta ugu badani waxaa la mid ah reerihii iyo qoysaskii iyo reerihii meeye yurub iyo north america waa la kala tegey yani waxaad odhan kartaa guur kastoo dhaca intiisa badani wuxuu ku gebagaboobaa maxay in badanoo ka mid waa furitaan buu ku gebagaboobaa maxaa mashkiladeennii noocan ka dhigay maxaa ka dhigay haddiiba aynu isqabanno un inaynu isa sudhnaanno isdillo ama aynu kala gogo'no un maxaa xal ka dhigay warina kala rar waxaa xal ka dhigay waxa weeyaan ma aha inaad dadka ka dhib badantiin soomaaligu inuu yahay qof caqligu engegan iyo dadka ka dhib badan ama dadka ka garaad yar ma aha aniga sawirkayga waxa weeyaan inaynu gar xunnahayo inaynu garan weynay qaabkii aynu mashkiladeenna mashaakilkeenu kama badna mashaakilka bini aadamka laakiin qaabkaynu u solf garayn lahayn solutionka ugu raadin lahayn u xallili lahayn baa lumay oo ah baynu leenahay saddexdan sharcigu sheegay ayuunbay reconciliation theorygoodana ku dhigaan forgiveness iyo waxaana idiin sheegaan waa intan shareecadu sheegtay idan ayuha alaxiba markaan qadaayaadkan tilmaamayo wadaad baan ugu horraysiinaya laba wadaad markay isa sudhmaan lama kala fujin karo nin iyo gabadh isqabo oo nolol wada wadaaga oo caruur iska dhalay oo wada joogay markay isa sudhmaan lama kala fujin karayo organisation yar iyo jaaliyad yar iyo wax yaroo ay lahayeen markay isqabsadaan reeruun baabay u kala boodaysaa lama kala fujin karayo cid gardaran baa cidi garan mayso intii reer hebelana dhan unbay u baxaysaa intii reer hebelana dhan bay u baxaysaa maxaa waxeenna sidaa ka dhigay miyaynu ka xunnay dadka maya kama xumin kama xumin kama xumin kama liidanno kama caqli xumin kama aragti liidanno laakiin waxa weeyaan saynu mashkiladda u waajahna inaynu u xallilaaba wax ka qaldan yihiino
mushkiladdaa waa inaynu u waajahnaa kow inaynu isu dulqaadanno oo wax yar oo aan weynayn inaynan buunbuunin oo cirka ku shareerin ee ciddeennii cafii karta iska cafido noloshu normal noqoto mid in yar cunay iyo wax yar oo isweydweydaanoo qof sameeyey iyo arrin aan cuntaminoo qof ka dhacday iyo waa la cafii karaa iyo ma roon inaad cafida iyo in organisation kuma baaba'o qof maalin kugu qaldamay ama organisationka qalad ka sameeyey innaga waxa weeyaan waan moogtahay ururkii yaraa wax la sameeyey ninkii hebel ah waxa isu sameeyey waa la faafinaya waa la kala kooxaysanaya waa la kala boodaya waa ninkii hebel waa bini aadam oo waana gafaynta tane solution kala raadi waa la iscafiyay way dhici weyday waa la isu tanaasulaaye dadka isku soo dhaweeyo isu soo jiijiido isu tanaasula way dhici weyday gar aqbalo oo markaa garantaan waxay ku gabagabowdaha ku dhammaato wax dambo hadalayaa la maqli dad labadaa soo dhaafto waa inaad aqbashaa gartu waa inay noqotaa ilaahay kitaabkiisa wixii ku qoran iyo wixii heshiis idiin yaalle aan khilaafsanayn in laydinku gar noqo dad kalsooni lagu qabaana inay idiin gar naqaan waxa go-aanku soo baxo waa inuu fulaa markaana waa inaad aqbashaa ayuha alaxiba waxaan kale aynu akhrino waa laynoo heshiiyey iyo waddankeeni waa la baabi'iyey iyo dowladaha gacanta kula jiray iyo NGO baa jiray waxaana weligoodba way jireen ma mar bay dunidu nabad ahayd wax jira ma jiraan weligeedba duwalka jawaarka kula ahaa ama jaarka kula ahi dee ma dowlad baa jirta dunida la odhanayo maslaxadaada ha raadsanin miyay jirtaa ma jirto waa iska caqli xumo inaad tidhaahdo ethoobiana waa shay iyo south africa iyo dad kale intaa meesha ku jiro qaar baa xoolo ku shaqaysto maraykan iyo baa ku jira kuwo kale oo maraykan ma cid baa odhanaysa war dantaada ha raacanin aday hayd inaad taada raacato ma aha waddan kale eeddiisu aday hayd inaad wax iska celin karto taada raacan kartid oo midaysan kartid oo shaqadaada wadan kartid saxaabadii jabtee yidhi anna haada ilaahay wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum reeraha kala xoog batay cidina cid kuma tidhaahdo idan ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay canaan maaha laakiin waa inaynu wax isu tilmaamno caqliga adeegsano tafogna kama hadlayaan ugu iyo soomaaliya iyo waxa ka jira waxaan ka hadlayaa meelahaynu ku noolahay iyo waxa ka jira reeraha iyo qoysaskan burburaya organisationadan yare burburaya maxaynu halkan wax isaga celin kari weynay ama caruurteena loo guray ama tii waynu ururi kari weynay meeshana nimaan urursanayn oo xoog jira ahayn wax iskama dhiciyo markaynu ururi kari weynay ayaa cid waliba ina fagatay qaanuunka dee waa la isku qalloociyaa haddaad tamar yar tahay isagoo qaanuunku yaallo ayaa adiga lagugu qalloocinayaa laakiin haddaad wax iska dhicin karto waad iska toosin kartaa laakiin qof iyo laba iyo saddex iskama toosinaysaa waxaan warkayga ku koobayaa caqliga aan dib u isticmaalno diinteennana u noqonno wasala allahuma calaa nabiyi moxamed wacala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin jazaak allahu khayr sheekh mustafe dumar fara badan baa jooga halkan iyo rag fara badan oo ugu tabarucay masaajidka abu hureyra mashruuca ay ku jiraan marka waxay kaa codsanayaan inaad ubadkooda iyo iyaga iyo waalidiintoodba aad u ducaysa insha allah maadaamaad musaafirna tahay insha allah bismi illaah ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen khayrka hayna wada waafajiyo aamiin wixii sadaqa iyo acmaal iyo salaad iyo khayran samaysanayna ilaahay naga aqbalo subxaana wa tacaala aamiin inteennii dhimatay iyo waalidiintiina allah u naxariisto aamiin intan yaryar iyo ubadkiiyo intan laga warwarayna ilaahay ha islaaxiyo aamiin wixii khayr adduuniya aakhira inoogu jiro rabbi hayna waafajiyo aamiin sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin